بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وراليال ملك السيد دنيا كجوكتان. انت صوم رمضان كعباد الله كأقبل انت أن صومين عذر دار أما عذر درتي أسومي وين إلهي عذر دار هذا فيه عذر دنا كقاضه انت أن صومين وعذر دار الآن يعذر الآن أيقو أسومي وين إلهي waxaan uga baryaynaa hanuun iyo inuu tuso wadada toosan. waa barnaamijkeena Tixanaha Ramadaanka aan ku soo qaadan jirnay shamaaisha tilmaamaha dhaqamada iyo qaab abuureedka Nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waa qaybtii 19aad ama 19aad. waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtan Nabigeena calayhi salaatu wasalaam fadhigiisa iyo qaabkii uu fadhiisan jiray. xadiidka ugu horeeya waxaa laga wariyay Qayla bintu Makhrama waxay tiri ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fil masjid. waxaan arkay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka ku dhex sugan oo joogo. وهو قاعد القرفصاء wuxuu u fadhiyay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qaabka la yiraahdo garwaaxeysiga. waa qayb القرفصاء waxa la yiraahdaa waa nooc kamid ah al-ihtiba ama garwaaxeysiga. fadhiga la yiraahdo garwaaxeysiga ayuu u fadhiyay weeyaan. garwaaxeysiga sida la yaqaan waxa weeye ay qofka inuu labadiisa bari ku fadhiistaa, lugihiisa ayuu soo laabaya, shanshadiisa ayuu qabsanaya oo labadiisa gacmood ayuu ku qabsanaya. labadiisa lugood boodiyahooda ayuu wuxuu dajinaya caloosha ayuu ku qabanaya. markaas ayuu gacmihiisa sida isku duubahaya weeyaan. garwaaxeysiga ama aduu ciyaamad haysta ama go'aas ayuu ku duubanaya sida odayaasha u fadhiistaan weeyaan. laakiin qaabkan laga hadlayo oo af carabiga al-qurfusa la yiraahdo waa qofka markuu gacmihiisa isticmaalayo. waa dadka maaragtay mutawaadiciinta ah oo aan ahlu kibirka ahayn iyo masaakiinta isay u fadhiistaan weeyaan. marka waxay tiri falamma ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mutakhashshi'a fil jilsa. marka arkay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku khushuucsan fadhigiisa oo khushuuc oo ka muuqdo. urcidtu min al-farq. markaas ayaa waxay tiri waxa leegu argagax galiyay cabsi iyo fazac. argagax ayaa dareemay tiri marka arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sida u fadhiya. marka argagaxaas waxay u dareentay nabigeena calayhi salaatu wasalaam heybadiisa ayay aragtay weeyaan. markaas ay ka heybaysatay argagax iyo cabsi ayay dareentay. xadiid kale waxa laga wariyay Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wuxuu yiri kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ilaahay ha u naxariistay wuxuu ahaa idaa jalasa fil masjid markuu masaajidka fadhiisanayo ihtaba biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku garwaaxeysanayay. wuxuu ku garwaaxeysan jiray labadiisa gacmood oo qaabka dadka sheegayna weeyaan. markuu fadhiisto oo labadiisa bari ku fadhiisto ayuu gacmihiisa ku garwaaxeysan jiray. ciidamada iyo go'iyo ma uunan isticmaali jirin weeyaan. halkaas ayaa ku siman maanta insha Allah Ilaahay nagu anfaco. ramadaanka cibaadada Ilaahay naga aqbalo. muuqaalka like hala saaro, hala sii share gareeyo, channelkana subscribe hala saaro, khayrka la isku dhiirigeliyo. wabillahi tawfiiq. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.